إلهي بقى ما هذا إسكالي ما أنت هل كان أنا عافمات قبنه maalmaha ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ayagoo maartay nimanka cadawga ahay oo farxadka ahay la baacsado hayo waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa ciidamada xoogga dhamaantood iyo maartay kuwa deegaanka sida ay maartay u baacsahayaan nimankan waa fidnadana Ilaahay maartay ummadan inuu ka dul qaado inaan annagana ka shaqeynaa loo baahan yahay وافدنا إن رهنا كأمسنا وحبة تريميس لكن إن أنا جمعنا كسولينه أو حمانة أنسولينه ووحلو باهين مركب عارفنا ضدك إن ديجانك أمام مارت الشعبك ديجان قبلك شبه الله هذا حد ما يشوف قالك كسعده ملاك لو أنت والله تيجي دون وأنا الله سيس عداه إن إمارة السواد بحان أي لمن كان فرحتك أي قرية كريبتان وعن سيدا كلا شلا واحد جرتين إلا قبتين meelo ka yimid meelo socdo la ogeyn oo timiyo ku baxeen oo nimanka ka soo farxaday raagaceel lagu haya raagaceel ku xiraya waxaana soo qabtay nin leeyahay beertiisa falaya soo qabtay marka sidaas oo kale in loo qabto qoryahana looga reebto dadkan inta laga keenay duurarkaas laga keenay la soo keenay meelahan haday meesha shabaabka ay ka dhax baxaan meel u socdaan aysan ogeyn in la qabto qof kasta gurigeeda iyo beerteeda ku aragto inay soo qabato ciidamadan in la soo garab istaago dadka deegaanka inaan la isqarin shabaab hadii ay maaratay idin dhibi jireen ama aad ka cabsan jirteen in dib loo laabahayo dib u laabashan way dhamaatay shabaabna waa u dhamaaday inaad geedaha isku qarisiin ama aad maaratay gadaal isu dhigtiin waxba ma tirayso inaan nimankan dhibaatada labaad muddada ku dhow 20 sano oo idin heestay oo saan magaalooyinkiina u yaaliin oo horumar oosan ka jirin oo caafimaad oosan ka jirin oo wax haba yaraateen nolol aysan ka muuqan nimankan baday oo intaasoo dhibaato ummadan baday in la iska kiciyo ayaa dawladdu go'aan ku gaartay dhammaan ciidamada qalabka sido madaxweynaha qaranka uu sareeyo madaxweynaha isteedkoodii la taagan dhammaan xukuumadaha oo dhan inay go'aan laga gaarin nimankan in la iska saaro marka inaan fadhino anaga oo aan ciidamada u imaaweyno oo xoolo u keeni weyno oo dhiirigeli weyno ciidamada waa ayaan daro dadka qoryaha heeso deegaanada joogo oo gobolka Shabeellaha Dhexe meel kasta ay joogaan qof waliba waa inay qoragooda la soo baxdo qoragii aan annaga nala shaqeeyeen waxaan ogaa doonaa inuu shabaab la shaqeeyo markii meesha ciidamada yimaadeen qoragii yaal ee nala shaqeeyeen hadda kadib waxaan aqoonsaynaa inuu shabaab la shaqeeyo mana dhaafi doono mana ku sii jira qorag waa inuu annaga nala shaqeeyo iyo inuu shabaab ahaado qorag kale u dhaxeeyo ma joogi kariib dadkuna waxa la rabaa inay ahaadaan shabaab iyo nin soo qabahay kaliya wax kale u dhaxeeyo ayadana ma jiraan marka inaan iska saarno oo dawladdu maanta way soo jeesatay waxay u soo jeesatay in cadawgan muddada badan dadkan ragaadiyay oo duleeso ilhaanay oo sharafkooda meel uga dhacay ay u soo jeesatay waa inaan annagana gaashano oo gacmaha qabsano oo aan dhahno intay ku jiraan meeshaan ay joogaan qora hadaa haysan qorayeen la soo baxnay aan wax ka qaban ninkii qoraysan qorigiisa inuu ku cibaadeysto kii maartay jeebka ka cibaadaysay kii lugaha ka cibaadaysay kii afka ka cibaadaysay intaas in la isugu daraado nimankan waa cibaado dhibaatada ay ummadda ku haayeen wadankan ay ku haayeen waa cibaade hal ugu cibaadeysto culimada ayaa noo sheegtay in qof la arkaba gadaal isu dhigto hadii Ilaahay fursad ku siiyo maanta inaa fursadda ka warwareegata maahan Ilaahay fursadda uu ku siiyay maxay tahay inay maanta qawaarij la dagaalamo oo cibaade ay tahay fursadda ninkii marka maanta fursadda ka faa'iideysan waay fursadda ku dhaaftay adaa marka iska beer daraysa waa inaan ka wada faa'iideysano fursadda timid oo qof waliba meesha uu joogo oo ka istaago qof koo arkan oo ku dhakoobsado haddii qora heesan oo qorgaas ku qabto soo qabsado oo keena asigoo wado marka aad iyo aad u maasantiin waxaan rabnaa dhammaan inaan iskaashano oo qof waliba meeshii joogtay ay ka soo gudbo